on dareemayna sidaas oo ahay waxaan ku sii tala galno on jecelno power ka raadinayna haday yihiin powerka iskama dhigneen horta xildhibaanka ugu horeeyay waxa la doortay adigoo tarada hayo qodobka labaad bishii September 10keeda aniga mandate-kayga dhacay ana ugu dambeeyay bishii August 27keedana waxa dhacay baarlamaanka bishii October 15keedana xildhibaankii ugu horeeyay la doortay iyadoo waqtiga gaarsiin ha September October 15keedii xildhibaanka ugu horeeyay waxa kale oo inay idin sheego doorashada mar hadii lagu heshiiyo oo gudiyadii lagu heshiiyo oo la kala tago oo doorasho la aado madaxweynaha wax u yaalo oo dabo oo shaqo ah ma jiraan wax dabo oo gacantiisa ku jira oo u dhaqaaji kara ama diidi karana ma jiraan soo annaguna doorashada early on inta markaan dekreetada isqoraya doorashada la aado soo dawlad goboleedyada inta ishabeynayeen isdajinayeen doorashada bilaabayeen waayo waqtigaas waxa ku dhamaaday wax ra'yiga waxa kale oo rabaa on the record waana la warsan karaa dadkii saaxiibada ahay ee maamulka igala tirsanay waa joogaan aniga 2016 waxaan ahaa mas'uulka kaliya ee extension diidan doorashadan dadban waa on the record public-aan u sheegay idaacadaha iyo telefishinada meel walbaan ka sheegay baarlamaankaan ka sheegay golaha wasiirada cid meel walbaan sheegay doorasho waqtigeeda haday dhaafto waa dhib badan tahay ku darsiga extensionka mandate-ko la extend gareeyana waa ka sii xun yahay sharciyad ma jirto tuulku waa badana is aqbalaadi ma jirto dalkaana oo fragile-ka oo nugul oo dagaalada sokay colaadi ka soo baxayeen is ogolaan lagu wadaa in la israbo oo raalli iska yaan yaa wax lagu wadaaye ma aha ana iri xataa qaanuunka marka qaarkood meelaanu ka shaqeynayna markii siyaasad timaado qaanuun lama aadi kartid siyaasadda haddana infrastructure maxkamad dastuurkeena ma dhameystirna maxkamadii dastuurigeed oo dastuurka hadii la isku qabsado fasiri lahayd nooma dhameystirna inteed uga maarmi kartaa qof walba walaalo maxaa dhigay adiga inaad dhahdid maxay kula tahay adiga inaad dhahdid ma diida kan ha maxaa kula quman adiga inaad dhahdid midda kale madaxweynaha qofka ah waa figurehead dadkan doodaha qabo oo aaraada qabo oo cabsiyada qabo oo rabitaanada qabo u dhaxeeya meel dhaxintiisa adiga maxay kula tahay kan waa diidana kan dabo dhahayna maxay kula tahay inuu yiraahdo oo meel dhaxad dadka inuu isugu keenaan rabaa isku amaani maayo shaqadaasna aniga waagi i joogtay si fiican laakiin madaxweyne hadda madaxweynaha jooga waqtigiisa wuxuu ku ekaa 7 Febraayo 2021 ilaa hadda shaqadiisa caadi u wataa korbu magacaaba qof korbu xilka qaada dekreet uu soo saara sharci uu ansixiyaa wax horbo sameeyaa sidii isagoo waqtigiisa ku dhex jira amal oo kale saadaradeed ma la dhihi karaa waqtigaaga sidaas sameysay adiga garashadaada ay aheede wax sharci ma ahayn arabna dawladnimo mugan ka hadlayna sharciyan ka hadlayna waxaas madaxweynaha oo sameeyo dhan sharciyad ma dugsana sharci ma aha dadka la magacaabay sharci lagu magacaabay haddii commitment laga waa waxa anaga ka careyna waxa laga yaabaa dawladda imaan doonto inuu caqabado u dhigo oo hadda ka sii dhigayo oo hadhow dawladda timaadahay say u xallayso waxaas ay ama waqti uga dhumo amaba ayba ku hakato ay muxuu ahay caqabad ku noqoto waxaan rabnaa macquul ma ahan nimaan sharciyad haysanin in uu wuxuu rabo iska sameeyo waa qodobka kale waxa in kuleetiga la wada qabsado oo la iska wada raaraca la diidayay waa u wada jeednaa madaxweynuhu safiiro magacaabay jagooyin kale oo magacaabay dad uu xilka qaaday kuwa darajo ka xayuubiye kuwa kale oo yeelay hadda muxuu ahay farq isqabsi baan ku jiri karnaa annaga waxaan rabnaa in siyaasadii wixii la xaliyaan rabnaa mooga madaxweynuhu wuxuu sameynaa sax ma aha waana u wada jeednaa kulli laakiin inaan maalin walba iridiis taagnaano tuugii waaye ka daba qaylinana waa ku wada macno beelaynaa asagoo hadduu garan waaye annagaa garano waxaan inaan ku macno beelayno oo ka amsno ka harno waxaan usoo daadegaynaa xudunta mawduuca marsheela door intee la eg ay dhalinyaradu ay ahayd inay ku yeeshaan waqtigaagii iyo waqti joogo iyo guud ahaanba marka xilliyada kala guurka la maraayo door intee la eg ay tahay dhalinyaradu inay ku yeeshaan dhalinyaro dhowr maroo horane waa iga maqasheen haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo siyaasadda la isma siiyo siyaasadda waxa la isku sadaqaysta ka mid ma ahan
waxa la isku kaalmeeyo inta badan ka mid ma ahan siyaasaddu qofka inuu jarsado asaa laga rabaa ciyaayaa loo cila dhaanshaa waay wargeedu yes caqabado badanaa idi haysto qabiilka uu ka mid yahay haddii maanta waa la codaynaa oo sanduuqa codgu ridaa la dhihi lahaa baarlamaan wada dhallinyaro ah iyo xukuumad wada dhallinyaro ah iyo madax dhallinyaro ah dalkan ka imaanaya taas lafsadeeda dhallinyaradu waxay uga baahan tahay marka abaabulnaan war dhallinyaradu intay is abaabusho haddaad heer soomaalinimo ama heer degaan aa isu abaabuli karina xataa heer qabiil xataa isu abaabulo laakiin nin geed u buuxaa gari u go'daayaa la yiriye odayaasha dhaqanka iyo beesha dhexdeeda lafteeda dhallinyaradii beeshoo taagan oo iswadato gabdho iyo wiilal leh oo le odayaasha raalli ahaada waxaas idinkama yeelayna sidaanaan rabnaa amaba dadka inta dhex galo odayaasha xataa guryaha kusoo kala shukaamiye ee keena waxa ay idinkaga baahan tahay waay haddii nin walba intuu gurigiisa asoo jooga in dhabarka inta laga soo taabto biri asoo suud wata anoo dhallinyaraa uu yimaado uu rabo idinma shaqayn doonto marka waxaan leeyahay dhallinyarada dooray leeyihiin rajada mustaqbalka rajada dalkaana dhallinyaradaasi ku xihan tahay waa la soo tijaabiy waa la soo arkay hay-adaha hadday private yihiin hadday public yihiin kuwa dhallinyaradu hogaamiso iyo kuwa dadka waayeelka ay hogaamiyaan isku mid ma ahan dowladnimo markay timaadane waaye aragaan ahay ha yeelin weydii maxaa waaye arag ku tahay dhe sistamka iyo nidaamka iyo qaabka inaan ka guurno aan rabno waaye arag ku yahay waaye aragnimadaasi marka mid dadka anfacda ma aha beryahan dambe oo hadda dowlad dhiskan uu socday sanadahan dambe qofkii ku jiray waa ku dacwoon karaa waaye aragaan ahay laakiin waxaa waaye arag oo waayihii horaan ahay waa fiican yahay waaye aragnimadaasi wuxuu ku fiican yahay in la taliyo laga dhigo wixii talo fiicana laga qaato wixii talo aan qumanayn ana la yska reebo laakiin dhallinyaroy khibrad idin dhaafsiisan adinka ma jirto dalkan burburkiisii iyo dhibaatadiisii idinkaa indhaha kusoo kala qaaday idinkaa dhexdiina wax ku bartay idinkaa dhex taagnaay idinkaa garanayo meesha ay dunta ka khaldan tahay ka xiran tahay idinkaa garanayo la idinma dhaama laakiin meeshaasaad laadiin dhallinyaro kaloo badanoo fiican waa nooga timida qurbaha waa la soo dhoweynaa waana fiican yihiin laakiin ayaga lafsadooda in badan oo aan toosnaynaa ku jirto qofka inuu dibadda ka yimiday ama sanada dibadda jira macnaheedu maaha inuu toosnayo isaga lafsadiisa waa la warsanayaa dibadda markaa ku nooleed maxaa samayn jirta dha hadduu starbuck iska fadhiyo kafeegis iska cabi jiray iyo haddii uu howl meel iska joogjoogi jiray dee waxbare dalka haddaa timide waaye aragnimo yeele ee meelahan muxuu ahay hoose shaqada ka soo bilaabaa la leeyahay waxyaabo badan oo dalkani hadda maanta marxaladda la joogo taagan yahay dhallinyaro qurba joog ahaa loo eedeeyaa oo madaxweynaha iyo madaxda tala xun siisay dalka aan dalka aan u lahayn aan ogaal u lahayn wixii dhacay aan ogeyn boogaha aan ogeyn waxa laga danqanaya aan ogeyn maxaan ku ihahdaa iyago berigii ama ayoo dhalin yar meeshaan ay ka tageen duruufihii ay uga tageen ay ku qofilan tahay reer heebelnimadu ku weyn tahay waxyaabo badan la khaldan yihiin talooyin ay bixiyeen oo madaxda qaarkeed ay qaateen waxay ka mid tahay waa keliya ma dhahayo laakiin waxay ka mid tahay asbaabta dalka meesha maanta uu fadhiyo fariisisay dhallinyarada dibadda ka timaadahay ma wada xuma kuwaa waxbartay shaqaystay mas-uuliyada qabtay oo public iyo private ba leh record leh kuwaas waayo kuwa aan rabno kii aan weligiis meel aan tegin ee ceyr ku noolaa jiray aniga waxaan qabaa ha yimaado muwaadin waaye laakiin meel hoosaha ka soo bilaabo tartiib si uu dalkan u fahmo iyo duruufihiisa dhallinyaro marka waxaan leeyahay dooraad leedihiin cid door idinka haysan karta male la idinma keenaaya laakiin doorka aad leedihiin saxan dahaba asagoo lagu wado doorka aad leedihiin doonta dadka siyaasiyiinta oo faraha badan oo anugu aan ka mid ahay oo niyadda sanne waa idin garab taagan yihiin fursadna waa idin siinayaan waageenni waa isku daynay
golihii wasiirada waa xasuustaan dad dhalinyaro ah intay percentage ka ahaayeen wasaaradihii ay joogeenna waa kuwa maanta tilmaaman oo wax ka qabsoomeen waaye dhalinyaradaas qurbajoogna waa lahaayeen dalka gudihiisa kuwa joogana waa lahaayeen wasaaradihii ay qabteen kuwa wax la taaban karo tangible ah deliver gareey oo qabtay waaye marka dhalinyaradu rajada waddankan waaye laakiin meeshaasay idinka laadahay is-abaabula waata laakiin madaxweyne dhalinyarada oo dibadda xoogaa yar moodaa inaad si gaara u durto kuwa gudaha balka hor ayagana maya horta sideedaba qofka mas-uul marka laga dhigaayo qofka inuu shaqaalo noqdo oo qof mas-uuloo ka sarreeyo uu leeyahay oo la hagayo oo maxaan ku rahda procedureska meesha yaalla uu ku shaqaynayo waa okay waay xirfadeedii hadduu leeyahay oo qualificationkeeda laakiin mas'alada siyaasadda waay mas'alada siyaasadda mas-uuliyaday rabtaa mas'alada xukunka oo wasiir noqo iyo wasiir ku-xigeen noqo iyo xukunka ah aqoon gaaray rabtaa waa dhalinyarada loo dhiibo macnaha ma dhalinyarada in loo dhiibo laakiin dhalinyaradan dadba soo xukumeen qofkaani horta 10 qofood ma usoo taliyey ama iskuol macalin ha ugu noqdo oo director ha ugu noqdo ama shirkad muxuu ahay head of department meel ha ka noqdo laakiin qofkan 10 qofood shaqo inta u diray ma la xisaabtamay problemaadkooda ma la xaliyey ha hadday tahay mas-uuliyadda qofkaas waa arrimuhu leeyahay waxbaa loogu dari karaa nimaan weligii cali iyo caasho aan soo kala celin ku gaar ma aha dhalinyarada qurba joogta oo dibadda ka timid ku gaar ma aha kuwa gudaha jooga farash asoo hadda jaamacadda ka soo baxo kuu imaana oo kuleeyahay wasiir ha layga dhigo maandhow gacdi in la yiraa waayo agaasimaha layga dhigo dhaha u kaadi waayo waa la celina xildhibaan ha layga dhigo dhaha lafteeda ma la celi karo reerkii ka imaana laakiin in loo u kaadi la yiraa waayo oo la celiyo waa lafteeda dadka background check waa in lagu sameeyaa qofkaani muxuu hore usoo qabtay ama waa inuu waxa loo dhiibaayo walax hore usoo qabtay ay yihiin ama wax uu hore usoo qabtay oo waxaan u dhigmi karo oo waayo aragnimada laga dhaxlay inta lagu dabaqi karo waa inay yihiin laakiin qof aan weligiisba hawl soo qaban ma loo soo waxyoonaa qofku waxaan hawl waayo waxa la maamulayo dad waayo mid kasta cabsidiisa iyo rabitaankiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisoo wataa isku hayntooda isku wadidooda iyo shaqadii loo diray inay soo delivergareeyaan ka keenistooda hawl u baahan waayo marka waxaan rabaa qurba joogta u gaar maaha dhalinyarada waxaan leeyahay intooda waaye aragga ah oo positive yani thinking sida oo positiveka u fikirayso mas-uuliyadaha loo dhiibo shaqaalo qof kastaa noqon karto waa mahadsantahay qofkii su-aal qaba gacanta taagan doonaa su-aasha ugu dambeysa weydiin doonaa qofka su-aal qaba ha isdiyaariyo kadibna dhammaantiin dabcan su-aalaha daa wada qabtaan ama in badan in kamid aad qabtaan fursad ma hayno laakiin waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala waxaana laydinka rabaa inaad su-aasha soo koobtaan haddaad 10 sekin kusoo koobi karto su-aashaada ama wax ka yar ama wax u dhow way fiicnaan lahayd aad mahadsantiin madaxweyne su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo ka waran dhalinyarada hadday siyaasadda ku soo qamaamto oo ay soo gasho haristeeda ma leedahay wala halisteeda waa leedahay oo wax kastoo maxaan ku ihahdaa sidii loogu talagalaa mesela loo isticmaalo dhalinyaradu siyaasadda inay kusoo qamaamto siyaasadda laga rabaa means qaab inay leedahay filter inay leedahay dadka lagu kala reebo oo lagu joojiyo siyaasaddan hadda xoogaa waa iskuma kaantoo toosan laakiin ilaahay idankiis mustaqbalka dhow way isku tootoosaysaa qawaaniin iyo nidaam iyo lawaaixay yeelanay qofkii siyaasadda la yidhaaho waddo loo soo maro yeelana qofkii waddada soo maro meeshii soo gaaro siyaasadda uu qaadana qofkii soo gaari waayena waa soo gaari waayse sanadka dambaad soo gaari doontaa yaa la dhaha laakiin hadda xoogaa isku dhexyaaca meesha ku jiro waa arrimahan qabaliga ah iyo 4.5ka iyo siyaasadda noqa lakiin haddii xisbiyadu shaqeeyaan xisbigu danow leeyahay ajandow leeyahay ajandihiisa siduu u fuli karo u ka shaqeeyaa matalan xisbigu wuxuu dooranaa oo soo gudbisanaa oo ama tikitka uu siinaa qofka codad badanna u keeni karo oo dadka hana karo oo wax abaabuli karo oo ra'yi siyaasadeed qabo dadku ilaan combyuter la brogram garaynayo wixii loo sheegay sheegaya ma ahane wixii loo sheegay sheegi karo waxna ku dari kara qofka noocaasa markaa xisbiyada lagu soo kala haraa primarysa la yeelana degaanada lagu soo kala haraa meeshaas qof kusoo haro qofkii meeshuu ku haray diidane waa la qabanaa joogaa laleeyahay adiga waa zaidata la dhaha marka riski aniga kama arko inay daneeyaan
oo kii siyaasadda geli kara siyaasad noqdo, kii activista noqon karo activista noqdo, kii social affairs ka shaqey kara uu ka shaqeeyo wax weyn waayo. marka hadda xitaa hadday fursad leeyihiin fursadoodu waa xilligaas oo quruxda badan markii la gaaro xilliga hagaagsanna walaxay karaa masalan dhalinyarada hadda extensional aadaha maxaa dowray dhalinyarada qaateen dabcan ciidamadiis oo hortaagay dhalinyaray ahayn laftooda oo waayeel ma ahayn, laakiin dhallinyaradiinaan gabdho iyo wiilal isninka maxaa idin ku dhacay waa gaabiseen waa leesdilaa iyo waa la shaqaynaa maa wuxuu inay mabda' kaa yihiinaa la rabaa. matalan meel la yidhahdo Myanmar idaacadaha waa ka fiirsan dalkaas dimuqraadiyad yara dictatoriyada ka jiri jirtay, waa doodeen waa qayliyeen mudaharaaday dhigeen jidkay istaageen waa la mari waay dimuqraadiyadaa la ogolaaday. haddaa la damcay dictatoriyadii in dib loogu celiyo military weliba uu ugu celiyo qoryo haysto. annaga militarigeena dimuqraadiyadan rabnaa dhowa hadda ooba dadkiiba barbar taagan qaarkiis, kuwaas askartaa dadki dilayso maalin walba jidkay taagan yihiin meydkay gacmaha kusii sidaan. ma aqaan iyadoo 600 ku dhowaad ay sii marayaan dadka ku dhintay mudaharaadyada yaan annagana dhallinyaradeenna waxaan dhaafan waa laysdilaa. war ma wax isdilaa male, maxaa lagu dilaa, maxaa lays war laysdili maayee waryaa iga tag iga leexadhahe dadkan soo qor maa wadataa maya laysdili maayo cod yeesha. dowladdan waxyaabaha markay ku waxay abuurtay fear factor, cabsiyay abuurtay. kii hotel kale wuxuu leeyahay hotelkaygaan lagu shiri karaa aniga waa lama ogolo, maxaa diidaayo amar maa lagu siiyey warqad maa lagu soo qornay telefona la iisoo diray iska jiraan lay dhahay. war adiga muwaadinaad tahay cashuur bixiyaad tahay businessaa u furata hotelkan haddaan lagaa kiraysanayn hotelka on lagu shaqaynaysa u jire cabsi waay. kii dhallinyarada haddaad soo baxtay wuxuu ku leeyahay waa la isdilaa. marka dee cabsida horta waa waxyaabaha ugu waaweynoo na dilaa. haddaad sax ku taagan tahay ha cabsan, wax khalada haddaad ku taagan tahay cabso, macno daraa u dhimanay aakhire adduunye beel waay. laakiin khaladka adoo diidan ha cabsanin. mabda'a kaa noqoto xorriyad inaad ku noolaatid, adoo xor aha dhalatay, nin muraad layaanu ku cabsi gelinin, ha aqbalin, ha yeelin. maalintaad dhima laheednaadan dhimanay, maalina soo zaa'id ku soo hormari mayso, maalina ku dibdhici mayso. laakiin adigaa lagaa rabaa sharaftaada iyo karaamadaada iyo waxaaga inaad dhowrto. violenciga ha ka shaqaynin, qora ha qaadanin, dadka ha dilin, ha qarxinin. waxaasoo dhan waxyaabaha naga xaaraansanay ka mid tahay. laakiin jidka inaad inta soo istaag tirahdo aniga dimuqraadiyadaan rabaa, aniga xor codkaanaan lehe, waxaan ma ogoli, qaanuunku ma qabo, inaad tiraadid haddaa ka cajistid inta xunaa kuu talinay. kuwa dulliga ah dadka inay dilaan rabo, dadka inay cabsi geliyaan rabo, dadka inay caburin ku hayaan rabo, kuwaasaa ku xukumaayo. nolol fiican weligaa ma gaaraysid. adduunyada dal dictatoriyad gala oo horumara ma jiro. adduunyada dalalka horumaroo dhan dimuqraadiyaday galeen. ceebta aan leenahay waxaa waaye wixii fiicnaayaan dimuqraadiyadii lafteedaa naloo xumeeyey. maxaa laga roona iyo wiil laga roona iyo laga roonaa inay tahay dimuqraadiyaddii yaa nalooga dhigay. edab darre iyo maxaanku idhaha caasinimo inay tahay nalooga dhigay maya, ma aha ma aha. dimuqraadiyadda aan heshino, waxaan ku heshiinana aan ku dhaqanno waayo. wax cusub ha iila imaanin adiga, anna kuula imaan maayo. waxbaan ku heshiinay, waxaas aan ku dhaqanno. wixii aan ku heshiinay hadday xumaadaan aan isku soo noqonno, aan iswarsanno. wixii aan ku heshiinay wax waa noo tari lahay insayana, intana aan ka bedelno, intana aan ka bedelnaan leenahay. laakiin cawada muggaan seexdo gurigeyga aan la soo kacaa subaxdii aan la hor imaanaa sileemaya saas waaye hadda maa yasiir ma shaqaynayso. adduunyadayna oo ka soo shaqayn weysa. mathaal haddaan isiiyo mucamar alkhadaafi 30 sano asoo jiro ayuu xukunka dalka libiya qabtay. 42 sano inay tahay jecelahay oo xukumay. xukunkiisa absolute power u ahay, xukun aan tala oo aan la barbar dhiga karin. hala dilo ninkaan wariimiya hala toogto hadduu yidhaha horaa laga tooganayo. ninkaan muxuu ahay hebel miya $1 milyan hadda hala siiyo ayadoo boorsooyin lagula ordaa loo keena waa la siinay. 42 sano kabacdi intee kusoo dhammaaday. 21 sano oo dalkaani maxamed siyaad barre oo madax ka ahay xaggee kusoo dhammaaday.
xusni mubaarak 32 sano ka bacdi xaggee ku soo dhammaaday cali cabdalla saalax xaggee ku dambeeyey idris debiga daraad u dambeeyey oo maxaan ku ihahday dhimanay xaggee war xug dictatoriyadda marka maxaa ka dhasho cali cabdalla saalax intaasoo sano ka bacdi asagina waa la dilay dalkii yamanna meeshaad aragtuu ka dhacay maxaan ku ihahdaayey libiya 40 iyo dhowr sano ka bacdi kadaafiya laga dhacdeeyey waa la dilay jidka dariiqaa lagu dilay ayadoo dharka laga sii siibaayo dalka liibiyana meeshuu ku dambeeyey waa aragteen war dictator wax la doorta ma aha wax la jeclaysa ma aha dowlad gacan bir ahaan rabnaa inta aad nooshihiin iska ilaaliya erayadaas dowlad gacan bira lahaan rabnaa gacan bir ahaan ku qabanaynaa qof aad adagaan rabnaa hebel waa jiljilca annaga qaanuun adagaan rabnaa institution dowladnimo adagaan rabnaa qof adag ma rabno gacan birana ma rabno waxaan u malaynayaa wixii xog uuna sii kara waa na siiyey dabcan su-aalo fara badanaa ku laaban oo aniga xataa xaggayga iiga laaban lakiin waqtigaa nagu yar marka waxaan rabaa markaa inaan idinku soo celiyo dhallinyaroy oo qaarkiin fursadda u hela inay madaxweynaha su-aal weydiiyaan ay noo soo koobaan fadlan waxaan idin xasuusinayaa inayna mawduuca ka bixin ayaan idin xasuusinayaa kow waxaan siinayaa wiilka dhallinyarada ah ayaan siinayaa magacaaga noogu bilaaw magacaaga codkaaga kor u qaad magacaaga ku bilaw horta magacaaga ku bilaw magacaaga cabdirashiid maxduud weheliye waaye su-aasha aan qabana waxay tahay markay kala guurka laga gudbo dhalinyarada door macnaha ma ku yeelan karaan miiska wada hadalka oo lagu go'aaminayo doorashada dalka Soomaaliya marka mise waxa loo baahan yahay xilliga kaliya oo shaqaaqada jirto ama sitin insha Allah waxaan rajaynayaa madaxweynaha u fahmo su-aasha waata yarkan kale ninkan dadkii gacanta ugu horreeyay taagtay aan siinayaa waxaan isku dayayaa dadka si u kala horeeyaan inaan u siiyo aan isku dayayaa madaxweynaha waa salaamaya magacaygu waa Maad Xasan Xuseen madaxweynaha waxaa rabaa in madaxweynaha dhalinyarta aad magacaaga ma nagu bilowday Maad Xasan Xuseen okay dhalinyartu waxay mar walba dhaleecayaan dhahan odayaashan hor istaagsan oo mar walba siyaasadda naga hor istaagsan oo noo diida inaan haween ka gaarno siyaasadda tusaale ahaan waxaan soo qaadatay doorka odayaasha oo dhaqameedka kale in laga soo gudbo dhalinyarta ay abaabulaan odayaasha ay ka soo hormaraan waxaa ognaan in xildhibaanada lagu soo xulo odayaasha ay soo qoraan gudooyinkan ay qoraan odayaasha marka sidee odayaasha u soo gudbi karaan dhalinyartan ay ku yeelan karaan haween siyaasadeed ayagoo odayaasha loo qordhinayo habka ay dhalinyartu rabaan siyaasadda wata haddaa gadaal aadi karto hal mar gadaal yarkaas dhexe oo hadda istaagaya inta badanna dhalinyartu waxay u qaybsamaan qaar siyaasiyiin raacay iyo qaar kaligood taagan oo meel ay raaci weysaan sow la dhihi ma karo siyaasiyiintu waxay raadsadaan inta badan qof u sacbisa keliya sidaas darteed waxay siyaasiyiintu ay sameeyeen magacii dhalinyarada ayay dileen sow la dhihi ma karo kow su-aasha madaxweynaha weydiiyaa waay su-aasha sow la dhihi ma karo siyaasiyiintu magaca dhalinyarada ayay waxay u dileen si dadban maxaa yeelay dad ka duwan afkaar ahaan oo dhalinyaro aan sooma dhaweysa marka horeba madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu dhaha dhalinyartu yaysan baqin yacni dimuqraadiyada loo dagaalamo wax fiican waa xaqiiqatan oo annaga dhan waxawahay qof kasta oo dhalinyara uu aaminsan yahay haddana qof kasta oo dhalinyara wuu baqaaho wuxuu is dhahaa nihow wuxuu arkay ama hore u soo arkay dhalinyaro badan oo dee inta waxawahay la dilay ama si kale oo waxawahay xataa waxay u dhinteen aanan mar dambe aanan waxawahay dib loo baarin
marka waxaan weydiinayaa madaxweynaha siyaasiyiintu naftigooda dad waxba waa la ilaaliyaa way baqaan dee cabsida siyaasiyiinta ku jirta anaga nagu jirta soo maha waa mahadsan yihiin saddexdaas wiil ee dhallinyarada ah su-aalahooda ayaan horta u ogolaanayaa inuu madaxweynuhu ka jawaabo kadib inta dhiman waa kusoo laaban doonaa insha allah hay soo dhawo madaxweyne waayahay bismillah cabdirashiid haddaan ka bilaabo miiska wadahadalka waxyar ka horna waa dhahayay waa ku celinaa miiska wadahadalka lacalla dhinaca fiicanaan ka soo qaada hadda bisha 20keeda wadahadalaa ayaa lagu baaqay wadahadalkaas cidda ilaa hadda la hubo waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada midowda murashaxiinta iyo badbaado qaran iyo kulli wax ilaa hadda la hubo inay ka qayb galayaan ma laha annagu aniga xasan sheikhaan ahay wadahadalkan ka qayb galaa anoo dhaha keligay meel ma taagin si aan wadahadalka uga qayb galo weelaan u tasho aniga wadahadalka uga qayb galo adiga yaad wadahadalka saad uga qayb galay cali iyo jaamac iyo caashe iyo maryan hala soo waca maa la dhahaa huwaari yaa tahay magac yeelo meel istaag ha lagu arko codkaaga ha la maqlo kabacdi ha laleeyahay war meeshaana dadaa joogo fikir iyo tala qabee ha loo yeero ama hala weydiiyo laakiin miiska siyaasadda see ku imaanay ma imaan kartid because adigaan u qaabaysan inaad timaadid siyaasiyiinta miiska siyaasaddaan rabnaa inaan fadhiisan dhaha loo diida sanad lasoo dhaafaan dhahayna miiska siyaasadda oo talada ka go-daana la fadhiisaa loloo diidahay annagoo qaabaysan oo madal leh oo gola leh oo weliba aan qof iyo laba iyo aan ayna kooxa ah haddana weli waa taaganahay maxaa miiska siyaasadda aan fadhiisanaa weli taaganahay laakiin idinka dhallinyaroy miiska siyaasadda see ku imaanay waxaanba rabaaba aniga hadda dhallinyarada inay timaadaan rabaa ii sheega see ku keena afarta aan adeer ku ayon aqaano maa hore gacanta uga soo qabana mase afar kaloon aqaanoon macallin u ahaa jiraan soo wadaa yaan soo wadaa yaa miiska imaana un leeyahay ha yimaadeen marka waa idiin sheegay waa idinku celinaa is-abaabulaa war dhallinyaro is-abaabula institutions yeesha kala qaybsanaanta garaal iyo odayaasha iyo ku dhex jirta ka imaada maskax cusub la imaada ibdaaciyaad creative ideas siyaasadda suuqa siyaasadda badeecad keenso badeec kuma taalo dhallinyaroy suuqa siyaasadda ee soomaaliya badeeca idima taallo wax laydinka gata ma yaalaan badeeca soo dhigta suuqa badeeca aan qoray iyo qarax ahayn oo ra'yi ah oo ra'yi iyo talo dalkan lagu hagaajinayo ah waa idinka buuxdaa waana u joogteenoo waataan dhowr mar hore ku maamaahay madax madooba baan ku haray maankii adikow idinku jiraa isku taga magac yeesha weel yeesha ra'yi la imaada cid idin hor istaagi karta ma laha laakiin aniga mogtahay saakay shaatiga aan wato mogtahay waxaa waaye haddaad tirahdid yah meeshaadaad joogi iyo kafean saaka ka soo cabay maxaa elite iyo jaziiraan fadhiyaan ku sheekay cawada xaggaan jallaato ka cunay ma shaqaynayso meeshaasaa matalaadda miidka ka jirtaa cabdirashiid saaxiibkayo odayaashaana diidanow dhahay muxuu ahay mahad xasan odayaash mahad xasan maano odayaashsee looga soo gudbaa odayaasha ama waa dhex caray waad nuxnuxuleynaya sida kan hadda kasoo gudba uga soo gudbaad uga soo gudbay oo si fiican aan ahayn ama odayaasha lagaama laha qabiilkana lagaama laha fiiri sidaadaba aniga dhowr mar horena waa sheegay 4.5 fursad kuma lihid dhallinyaroy wax fursada oo 4.5 ah ku leedahay ma jiraan number 1 horta dalkan 4.5 inuu ka baxa inaad ka shaqaysid waayo lanna waan dhaqaanaa reeraheenna waan dhaqaanaa tala dhallinyaro tala ku mare oo markii horaaba waxaa odayaashu ay meel degsadeenoo waxay dhaheen dhallinyaro intay geed ka boodday tala ka boodaahay dhaheen yaan talada loo dhiibin waayo tala yaan warsanin waayo waa ka boodahay waa ku dheelahay maadhow waa dhallinyarta adiga ukadiyaa lagu leeyahay mar curadkaa hadlayaa lagu leeyahay mar maxaan ku rahdaa duubka reerka hadlayaa lagu leeyahay haddee mugga aad meeshaas soo
mugaa xataa da'da mugaa soo gaartid adiga curad reerka curad uu leeyahay curadka hadalka adiga marka qabiilka dhexdiisa wax weyn kama lihid war inta aad fatrada aad dhalinyaranimada ku jirtid ood energy iyo tabar iyo caqli iyo fikri aad leedahay shaqayso isu taga is-abaabula waxaya dalkan waxaan u taagannahay 4.5 inuu ka baxo si heshiis lagu yahay inuu uga baxo oo aan ahayn aniga 4.5 in laga baxo anaa dan iigu jirtaaye anaa riixaya aan ahayn si heshiis 4.5 dadaa rabo oo securitygooda ka arko oo maxaan ku ihahdaa amnigooda ka arko oo maxaan ku ihahdaa matalaadooda ka arka dadkaas in inta lala fariiso 4.5 haddii laga guuro securitygoodana wax ka halaabayn matalaaddoodana wax ka halaabayn laga qanciyo la tusay u baahan dadku wax xun iskama jecla asbaabaa meesha ku hayso marka in asbaabta meesha ku hayso loo qanciyo loo sheego lala fariisto rabaa anaa iriyayaal in la dhaha ma dalkan waa in siyaasadiisa ay xisbiye aadaa oo afkaar aadaa oo waxa tartamaya ay afkaar noqdaan ee aanay reero noqonin hadda waxa tartamaya waa reero reer xildhibaan leeyihiin say xildhibaan ku yeelo weynay ayaa meelaha qaarkood la isku dila marka inaan ka qaadno oon geographicna ka dhigno dhulkii geyno siyaasadda degaanadii reerkana aan ka saarno oon afkaar ka dhigno labada waxyaabood eena looga fadhiyo waa labadaas reerood odayaasha lagama soo gudbi karo haddaanan derbigooda lasoo jabsan cabdicasiis wuxuu dhahay odayaashii siyaasiyiinta xataa dadka inta idinku fikirka aad wadatiine kuwa idinka fikirka duwan matiin oo aniga nin iga fikir duwan maxaan wadanaa haddaanba sheegaabo aniga intaan isku fikirnaan israacayna shimbirba shimbirkiisa ula duulaa horaa loo yiri intii igu tala inta kale hal dulmiye ma qabo hal lagu xadgudbo ma qabo fikirkooda waa xushmayna haddaan mid sugan la dhegaysana waa kala dooda kayga wuxuu ku fiican yahaan u sheega oon kooda uga fiicanahay ma ku colaadinayo fikir iga duwan inuu qabo laakiin aniga dee kaamkayga ma aha intaan isku fikirnahay ayaan jaalnahay intaasaan isku doon saarannahay fikirkaan isla gedaynaa suuqa siyaasadda badeecada aan wadana waa fikirkan kaasaan dhiganaynaa kaasaan ku midaysannahay isku beel maahin isku jamaaco kale maahin fikir siyaasi aan isla wadanaa isla qabnaa dalkaanaan ra'yi kaleenahay saas inuu u ekaado dalka mustaqbalkiisa yaan rabnaa intii ra'yigaas ila qabtaan isla qaadaynaa hadday 5 yihiin hadday malaayiin yihiinba laakiin nin aniga iga fikir duwan ninkan waa dhalinyarada waa iga fikir duwan doonteed soo saarayo absolutely laakiin wixii naga dhexeeya uu leeyahay fikirkiisa duwan aniga iga duwan soo qabo wixii xuquuq ahaayo sharcigu siiyaan ku ixtiraama fikirkiisana waa ku ixtiraama ma ku colaadinaay ma kula diriraay cadaalad darro ma ugu samaynaay ma ku bashargaraynaay hadduu iga guulaysto fikirkiisa fikir guulaysto waayo waa ayida hadduu kayga ka guulaystana wuu ayida war waxaan u baahannahay si civilized oo ilbaxnimaa inaan u dhaqanaan u baahannahay sidii jaafka aheyd oo baadiyaha oo nimaan warankaagu gelin warkaaga ma gala iyo nimaan shantaada kaa reebin sharci kaama reeba iyo war that is waa adduunyada kuma noolin waa ka nimiday geedaa lagu hoos dhihi jiray foorkaas annagana hadda guryahan iyo internet iyo microfon aan ku hoos dhawaynaa waa kala duwannahay waayahan warkiisaan u baahannahay nimaan shantaadu kaa reebin sharci kaama reeba nama qabato warankaagu nimaanu gelin warkaagu ma galo nama qabato war walaalow maxay kula tahay adiga maya aniga saanaan qabaa in la yidhaho waa kaa ra'yi duwanahay la yidhaahaa sida saxda oo suuban ay tahay waxaan qabaa inaan marka ra'yigaana aan saas u gadano oo aan saas u kala shaqaysano waa mahadsantihin aad u mahadsan yahay madaxweynaha waxaan rabaa kaamirada gadaal in la geeyo iyo microfonkaba gadaal in la geeyo haddii macquul ay tahay waxaan ka tegey raalli ahaw cabdicasiis hal midoo yidhi siyaasiyiintuba waa cabsadaan annaguna siday siyaasiyiintu u cabsadaanaan u cabsanayna waa kelmad saxa waay laakiin waxaa xaq u leedahay siyaasi soo bax soo garab istaag meesha oo dhimashada iyo dhibka looga cabsanayo waa isla aadaynaayo soo bax soo raac qorayna ma rabna qoryahagana naga reb inaad dhahdidaad xaq u leedaad xor u tahay dheh adiga ha lagu arko aniga maya qoryaha reebi ma kara hadduu yihaa arag maya aniga meesha tegi ma kara hadduu yihaa arag gurigaaga joogaa la dhahaa siyaasiga aan meesha istaagaysa aan kula istaagi karin oo garabkaaga aan istaagi karin oo fikirka aad wadid aan kula difaaci karin siyaasi ha ka dhiganin laakiin haddii
dhalinyaro banaanka joogta aan arkin aniga keligay banaanka inaan soo istaago maxaa macnahay samayne laakiin dhalinyaro taagan haddaan arko ee aan ku soo biiri waayo la taagnaa waayo anoon qoryo wadanin markaas bilaash xiitaa tahay meel laga joogo waa mahadsantihin aad u mahadsan madaxweynaha dadka harsan ee su'aalaha weydiin doona madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa sida ugu u awoodi karaan inay u soo su-aashooda iyo hadday comment ay qabaan madaxweynahan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa markii ay u timaado su-aasha jawaabta inuu aad uu noogu soo koobo yarkaas dhalinyarada aan dhegaysano ra'yigiisa magacaaga ku bilow bismillaah codkaagan kor noogu qaad bismillaah magacayga waa cabdiraxmaan maxamed cabdulle waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo su-aal sidoo kalena commenti inaan raacsado commentiga ayaan ka bilaabayaa mudane madaxweyne 2012 October adigoo aan lagu dhaarinin adigoo aan lagu caleemo saarina waxaan noogu imaatay dalka Uganda anagoo arday ah waxaan nagu waanisay ama nala wadaagtay maxaan ku idhaahdaa in public financing xoogga la saaro la barto xilligaas aniga dugsi sare ayaan dhiganay halkaas ayaan ku noolaa maxaan ku idhaahdaa public financing 4 sano ay joogtay machad ama maxaan ku idhaahdaa lagu horumarinayo dalka lagama samaynin ilaa haddana wiil sidiisa waaye waa mahadsantahay su-aasheeda haddii aan ku laabto mudane madaxweyne dunida maanta lagu nool yahay waxaa lagu dhaqmaa wax la yidhaahdo win-win solution oo all stakeholderska political stakeholderska adduunka ay ku dhaqmaan annaga Soomaaliya waxaan maqalnaa doorashooyinka xilliga maxaan ku idhaahdaa ay soo dhow yihiin inta ka horeysa wax la yidhaahdo win-win solution la isugu marka macquul ma tahay in dalka laga hirgeliyo win-win solution xaafid ama mucaarid ama bulshada inteeda aad iyo aad ayaan umahadsan taagaye oo gadaal xiga waa madsanta win-win solution su-aasheeda ugu horeysa waxaa waaye magacaygu waa cabdiraxmaan macalin yuusuf su-aasheeda ugu horeysa waxaa waaye guddiga doorashooyinka waa cabdiraxmaan macalin yuusuf okay guddiga doorashooyinka horuu jiray iyo guddiga doorashooyinka hadda la magacaabay oo madaxweynaha uu magacaabay waa su-aasheeda ugu horeyso qaabkee ayuu u arkaa madaxweynaha hadda aan la taagannahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud qaabkoo ayuu u arkaa su-aasha labaad maxaa keenay in wasiir bayle wasiirkii maaliyadda soomaaliya oo weli sagxaddan taagannahay wasiirkii maaliyaddii hore xilligii oo cumar cabdirashiidna uu aamuso inuu iga qanciyo ayaan u baahanahay madaxweynaha adigoo raalli ah soo dhawow codkaagana soo gaartay magacaaga ku bilow oo bartay cilmiye kala duwan oo ay ku jiraan cilmiga amniga ama security-ga rajana ka qaba inay noqdaan hoggaanada ciidamada hadda sida ay yihiinba dhalinyaradu waxay door muuqdo ku leeyihiin maamulka ciidamada hadday noqon lahayd 3 laamoodba muxuu noqon karaa qof dhalinyaro ah oo si uu ku noqday taliye ciidan ama taliyaha u sarreeya ciidamada qalabka sida markaasina isagoo og qaatay go'aan uu og yahay inuu mustaqbalkiisa mugdi ku ridi doono oo khaldan
muxuuse madaxweyne noqon karaa si uu taliyahaasi dhallinyarada maadaama nolol iyo shaqo uu rabo alternativeka uu qaadan karo maxay noqon kartaa isagoo raba inuu magaranaysaa shaqadiisiina ilaashado wixii quursiga ahaana maya uu dhaho su-aasha labaad waxay tahay f d s iyo f m s inta badan waxaa soo laalaabta khilaafaadkooda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dowladdaadi waxaa jiray yacni wakiillo u kala garqaadi jiray oo tusaale ahaan maamulka puntland oo kale wuxuu lahaa qof u dhexeeya dowladda federaalka iyo qofka ma garanaysaa oo madaxweynuhu magacaabi jiray d f ka oo hawshiisa yacni xiriirin jiray oo u kala dabqaadi jiray hadda meesha ay beesha caalamka ama c six plus ay u kala dabqaadayso arrintaas ayadaa xagee bay ku dambeysay intaasaan weydiin lahaa saaxiibkii ugu horeeyey oo istaagayay magaciisu waa cabdiraxmaan miya ma cabdiraxmaan kii labaad u ahay labadaba cabdiraxmaan miya laba cabdiraxmaan cabdiraxmaan aad codkaaga cabdiraxmaanoo uma maqlin macad public financiga ah ishuuga oo runtii naga taagan hadda khubaro oo aqoonta public financiga inay nagu yar tahay ma ahan dad badan oo public financiga bartay ama yaqaano ayaa dalkan jooga public financigana intiisa badan qawaaniinuu u badan yahay farsamo xisaabeed uma badna nidaam la raaco oo degan oo la daba kaco u baahan yahay marka macaahidda ama jaamacadaha maanta jirana in badan oo kamida way dhigaan maadooyin badan oo public financiga ah way dhigaan laakiin waa run in oo institute oo macad public financiga dhigo looga shaqeeyo ama taxationka hadday takhasusaadka public financiga dhexdiisa takhasusaadka public financiga dhexdiisa looga shaqeeyo in la helo aad iyo aadaan kugu raacsanay lakin dee fursad aniga berigii umaan helin prioritieskii waana looga darnaaday waxaa laga shaqeynaya waa un priorities moogtahay waxa jiro dhan lagama shaqey karee maxaa priority unbaa laga shaqeeyaa sida loo kala hormarinaayo siday u kala dhib badan ama u kala muhiimsan yihiin baahiyada jira markaas arrinta ku saabsan win-win solution win-win solution sideedaba waa midda hadda dadku u taagan yihin oo ah consensus win-win solution waxa waaye wax adigana waxbaa ka tegay anna waxbaan ka tegaa meel dhexaan iskugu imaanayna oon isla aqbalsannahay so waa arrinta laleeyahay waxaanay wada ogol hayaan ama wada ogol ma haystaan wixii inaad qaanuun raacdo oo qaanuunkaa qaba sidaan inaad tiraa iyo in qaanuunkii uu ku xalli waayo ama auna jirinba qaanuunkii xalli lahay oo aad tiraahda ha laga wada hadlo oo wada ogol ha loo raadiyo la yidhahna option kale waayo wada hadalay u baahan tahay inaan la caajisin amuuruhu hadba sida ay u kala adag yihiin kuwaa u baahan maalmo kuwaa u baahan sitimaano kuwaa u baahan bilo kuwaa u baahan sanado in la wado oo la daba joogo u baahan laakiin marka dambe un in laga option waxaan ahayn khiyaar ama la doorto wax la doorto ahayn waa heshi weyne waa kala tagnay wax la yidhaahdo marna ma aha annaga waagii madasha hogaamiyaasha qaranka aan lahayn nlft madashi waxay ahayday 5 ajenda haddii la keeno oon laba ku heshiino labadaasaan intaan isla soo istaagnaan dhihi jirna maanta waxaan ka wada hadnay a b waana ku heshiinay saas iyo saasaa ugu heshiinay saddexdaasaan ku heshiin weyne ma dhihi jirin saddexdana waa u ballami jirnay in aan muxuu ahaay maalin kale inaan isla soo noqono marmaraa dhici jirta bil gudaheed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayagoo dowlad goboleedyadu tegay inay soo noqdaan xamar ku soo noqdaan bil gudaheed 2 jeer camal war arrintii sidaas aheeday waktiga nooma saamaxay inaan iska dadejinay u baahantay aan su nimaado ma ku heshiin waynahaa qolka dib noogu dhig kan ma ku heshiinahaa bes dadka aan u sheegno 1 iyo 2 waa ku heshiinay marka waxay u baahan tahay farsamooyin iyo dad dulqaad leh oona muxuu ahay yani fikiraayana yay u baahan tahay win-win laakiin waa waxa wax ugu fiican oo hore loogu soco karo sharcigaba win-win uu ku dhisan yahay haddii aanu win-win ahayn sharci ma noqon lahayn lama aqbali lahayn sharciga aqbalaaduu rabaa in la aqbalo oo sharciga dalka inuu gari gacmo la-aanay geed kugu xirtaa soo maahan soomaalidii gartu waa sharcigii sharcigu gacmo ma leh laakiin geed waa kugu xiraa waana ku dilaa xorriyadaadana waa qaadaa hantidaadana waa qaadaa doodna ma ka qabaysid
marka waa win waa ayadaas rabsadeeda muxuu ahay aqbalaadeeda marka waxaan qabaa taas waa la gaari karaa waa sidaas cabdiraxmaan guddiga doorashooyinka aad uma fahmin cabdiraxmaan oo haddii guddiga doorashooyinka ee 2016 ay ahayday structurekii dadka shakhsiyaadka muhiim ma aha laakiin laba guddiyaa jirtay guddi heer federaal iyo saddex guddiyaa jirtay guddi heer federaal oo doorashooyin oo national ah iyo guddi heer dowlad goboleed ah iyo guddi xallin khilaafaad maadaama doorashadii qaanuun doorasho aanay ku salaysnayn maxkamad laislama aadi karin marka guddi xeer beegti ah waa in las dhisaa oo dad oo loo qaatina guddigaasna waa jiray saddexdii guddi waa jiraan terms of referenceskoodii iyo waajibaadkoodii waa la garanayaa iyo siday u shaqaynayaan bas in inta laysku yimaado shakhsiyaadka loo dhiibi laha laga heshiyo loona dhiibay u baahan tahay waana meesha laysku haysto shakhsiyaadkii loo dhiibaya waa ogeedeen wixii ka dhacay ilaa haddana lama xallin waa taagan tahay qodobada aan laisku mari waayey ay ka mid tahay dadka la keenay dadkii sharcigu ka reebay sideedaba markii sharci lagu dhaqmayaba uu reebay in ayadoo sharci lagu dhaqmayn dad ay keenaan askar digtoonow dib u jeeso saas yaa la leeyahay ayaa aniga garsooro meeshii ka noqonayso macquul ma aha welina waa taagan tahay masaladaas dad soomaali ah oo dhallinyaro ah oo loo qaateen ah oo la garanayo in aanay qaabdarooyin badan iyo taarikhda xun aanay lahayn in loo dhiibo waaye si ay dadka ugu garsooraan ay u maamulaan ay wax ugu hagaan ayagoon u kala hiilin haddii ay tahay doorashada dadban kii kale ee ahaay guddiga doorashada madaxa bannaan guddiga doorashada madaxa bannaan saddex sharciyo u leeyahay saddex sharciyo ku shaqeeya sharci waa sharciga asiga lagu dhisay uu ku dhisan yahay waajibaadkiisa awoodihiisa wixiisa dhan ay ku cad yihiin sharciga waa sharciga doorashooyinka oo dhaqan gelinaayo oo inuu dhaqan geliyo oo maxaanku irahdaa uu socodsiiyo la rabo sharciga kale asina khuseeya waa sharciga xisbiyadii iyo siday u dhaqmaan iyo sida loo kala maamulo haddii marka saddexdaas tuul aaladood ouna gacanta ku haysanin ouna ku soconin ma shaqayn karo so waxa u shaqeey waaye waa sidaas sharciga ayaga lagu dhisa waa haystaan sharciga doorashooyinka waa dhammaystirmi waaye sharciga xisbiyadana muxuu ahay waa dhammaystirmi waaye asagana haddii aad guddiga madax bannaan doorashooyinka aad ka waday cabdiraxmaan waa sidaasaa qaba rooblow taliyayaal dhallinyaraada haddaan qabnaaba ciidamadeena amniga haddaa fiirisi dadka jooga ama taliyayaasha ama kuwa ku-xigeenadooda ah waa dhallinyaro laakiin dhallinyaronimo ma aha w dhallinyaronimadu waa factor muhiim ah laakiin qofnimaduna waa factor kale intiinaan meesha ku jirto isku dabeecad maa tihin isku dhaqan maa tihin isku aqoon maa tihin isku karti maa tihin isku faham iyo isku caqli ma ahidiin qofku inuu dhallinyaro yahay aqoon leeyahay xikmadna leeyahay waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay inuu qualities badan uu leeyahay dhallinyaro daisu yar tahay ou 20 jir yahay 30 jir yahay bes ma aha dhallinyaro ciidamada waa joogaan laakiin markaan runta sheego wixii laga rabay waa ka soo bixi waayeen ninka dhallinyarada ninka ciidanka ee sarkaalka waa dhaartay wixii lagu dhaariyey inuu dhowro waayo hadduu jagada waynaya xataa war qofka jagada kuu dhiibay ee kaa qaadayo iyo ilaahay ku khalqay ee aada magaciisa ku dhaaratay yaa weyn marka ilaahay ku khalqay aad intaad iska dhiga tirto qof aad tixgeliso dee shaksiyadaada iyo personalitigaada intay la egyihin waa oga cabsida jira beledko waa laysdilaa waa laysbaxayna waa laysbaxayna leen ayagaa abuuray lanna waxaa laysku dilaayo oo laga cabsanaya sharci daray ahayd nin sharci lagu dilaayo oo sharciga lagu dilaayo ka cabsanayo ma jirin nin walba sharci darow ka cabsanayo in lagu dilo cabsidaas waxaa abuuray waa dhallinyaradaas taliyayaasha ah iyo kuwa dhallinyarada ah kole ay usii taliyaan waa ku mahad celinaa qaar badan inay diideen ay dhaheen maya annaga waxaan u dhaaranayna waxaan maaha mana qabanayn inay dhaheen ayagoona dhallinyaray ahaayeen extensionka ku darsiga qaanuun ma aha allahna kaa lama furi karno mana difaaci karno nimanka dhallinyaray ahayn kuwii dadka inay ku dilaan rabay oo dad ku dilay oo dad ku handaday oo dad ku waxeeyna dhallinyaray ahayn dhallinyaradu marka waa mindi mindiduna marne wax fiicanay kuu samaysaay oo howlay ku qabataa marne naf bini aadan oo sharfan oo qiimil oo karaamanay disha soo inaad dhallin yar tahay macnaheeda maahane dhallinyaronimada dhexdeeda maxaa ku jiro
waaya midda laisku haysto taliyaasha dhallinyarada waa sidaas khilaafka soo noqnoqday rooble ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah dadka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadaba waxaa mas-uuliyiin ka ah dad lasoo doortay laakiin dowladda goboleedka ninka jooga dadaa doortay shu-uuntooda degaankaasa inuu u maamulay u doorteen dowladda federaalkana dadaa loo doortay shu-uunta soomaaliya oo dhan inay wada maamulaan ayaa loo doortay aabbaha marka waxaa ah midka oo nationalka ah oo shu-uunta soomaaliya oo dhan inuu maamulo loo doortay ayaa mas-uuliyaddu saaran tahay hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay guddoomiye baarlamaan hadduu yahay wasiir hadduu yahay ra-iisul wasaare national positionka qofka jooga oo dalkii oo dhan magaciisa wato oo matalayo oo shir haddii la tegayo ku matalayo oo dad dibad haddii la aadayo ku aadayo oo haddii la joogo ku matalayo jamciyadda xukuumaha ka dhexeysa madaxweyne dowlad goboleedka hebel madaxweynahooda ayaa jamciyadda xukuumaha ka dhexeysa soomaaliya shirkeeda uga qayb galay maad maqasheen it never happening mana dhaceyso so ule ninkii dheeray dhufata ha la yidhi dadka mas-uuliyadda nationalka qaadaa number one horta kuwana waa ku xigaan aniga waxaan qabaa dadku waa kala ra'yi duwanaa karaa khilaaf waa ma horta waa kala ra'yi duwanaasho khilaafku sidiisaba ma xuma mana fiicna waxaa xumeeya ama fiicneeya sida loo xaliyo si aa loo xali karaa oo isjacayl iyo israbitaan iyo is-aaminaad ay ka dhalataa loo xali karaa si kalea loo xali karaa in lasdilo oo nafaf badana ay dhintaan na waa loo xalaa looga jiri karaa so khilaafku waa ra'yi kala duwanaansho waaye dad wax isla lahow tilmaama dadaan wax isla lahayn isma khilaafaan dad wax isla lahaa iskhilaafo waana ra'yi kala duwanaansho ra'yiga kala duwanaanshaha sida loo xaliyo waaye caqli badanay u baahan tahay mas-uuliyaday u baahan tahay inta markaas mas-uuliyadda joogtay ayaa waxaa khilaafka xumaanta u yeeshay ama samaanta u yeeshay waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo soomaalidu mahmaayeeshooda qaar badan oo xikmad leh oo shalayna sax ahay maantana sax ahaa jiro waxay dhahaan dadka reer koonfurka u badan weliba camal walaal camankow galaa carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waa maxay walaalka hadduu xanaaqo xaggaasuu intu istaagow yiraaho camanka buuro xagga fadhiisada carabkaa looga bixiyaa macnaheeda maxaa waaye waa lala hadlaa inta loo tagaa walaalkii maxaa kaa khaldan say wax kaa yihiin yaa la yidhaah waa xalismaa laakiin masaasuu yidhi haa kirdhe haddaan idhaaho masaasuu yidhi ha masaasaasan dhihi karo masaasuu yidhi reer hebel waa awalba waa garanayey reer hebel fikirku waa la garanay waxaasi waxaa maanta meesha aan naalana keeno waaye aadaan u rajeynaa inaanay ku dhici doonto dhalinyaro waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu dhalinyarada madashan ka soo qayb gashay ay qaarkood u suurta gashay inay madaxweynaha su-aalo weydiiyaan kuwo kaloo fara badan oo ayagana su-aalo rabay inay weydiiyaan way jiraan waan ka xumahay waqtigaan nahaayo afurkii waa soo dhow yahay xaalado kale way jiraan waqtigii programka aan ugu talagalnana intaan ayuu ku egyahay dhammaantiin idinkaynaan meeshaa jooga iyo daawadayaasha nagala socda telefishinka iyo baraha internetkaba waa u mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaas kadib waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan fadhiga baaqi kusii ahaataan madaxweynahana aan u ogolaano inuu si tartiiba ku baxo insha allahu tacala assalamu calaykum waraxmatullah dhalinyaro haddii aan la yiraahdo